السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أدبا إذن سلام يا صاحب يال waxaad ku soo dhawaataan kanaalkayga Learn English with Hassan saaxib yaal 10 kun oo subscribers wax yar ayaa inooga dhiman marka waxaan idinka codsanayaa saaxib yaal inaad noo buuxisaan 10 kun maadaama casharkan aadka u qiimaha badan aan idin soo diyaariyay maanta casharkan marka ugu horeyso waxa ku akhri doono qof luqadda u dhashay cod artificial ah ayaan soo dul saaray haddaba codkaas ayaa ku akhrinaya kadibna aniga ayaa ku sharxi doona insha Allah marka hore waxaad dhageysataa isagoo uu akhrinayo qofkii luqadda u dhashay bal ila dhageyso kadibna sharaxaadiisa waan iskugu soo laba doonaa insha Allah. Hell guys, today I am going to talk about money. This is really important topic because money is a big part of our lives. So first let's talk about currencies. A currency is the type of money that a country uses. For example, the currency of US is the dollar. And the currency of Mexico is the peso. Every country uses a currency to buy and sell things. Some currencies are very valuable. And other currencies are not very valuable. For example, today $1 US is worth 22 Mexican pesos. The dollar is more valuable right now. So what currency does your country use? Okay, now let's talk about prices. In the US most things are expensive, they cost a lot of money. In other countries things are cheap. They don't cost a lot of money. For example, in the U.S., the average price of a house is about $250,000. But in Mexico, the average price of a house is probably around $40,000. That is a big difference. Prices are very different in different countries. Another major difference is with salaries. The salaries in some countries are high, and the salaries in other countries are low. In the US, salaries are pretty high. Americans need to make a lot of money because life is expensive in the US. In some countries, people don't need a lot of money to live. But everyone needs some money to survive. Okay, now let's talk about spending and saving money. Some people really like spending money, and other people prefer saving more money. Different people have different habits. My family always likes saving money. My mom taught me to always save some of my money. So today, I try to save some of the money I earn. It's not always easy to save though. You have to be careful with your money because it's easy to spend too much. I know many people that don't save money. They always spend their money on clothes, electronics, vacations, and other things. I spend money on these things, but not all my money. Some people spend all their money because they want to enjoy the moment. I don't think I could do this. I think it's good to enjoy the moment, but it's also good to plan for the future. One other thing that people do with their money is to invest. You can invest in many different things, like the stock market, real estate, currencies, or gold. Many Americans invest their money. They want to use this money to make more money in the future. In some countries, investing is not very popular, or sometimes they don't have a good investment options. You need to be careful when you invest your money because not all investment options are good. Some investments are bad and you can lose money. People have many different ways to manage their money. Alright, that's all for today. Leave a comment and tell me if you spending,
saving or investing money. waa tahay wuxuu ku bilaabayaa sida tan. Hello guys, halkan typing error yar ayaa ka jira, ow ayaa ka maqan, so waa kaa waan hagaajiyey. Intana maadaama ay jumladii ugu horeysa ay tahay, it must be capital, waa inay noqotaa. waa tahay marka wuxuu ku bilaabayaa hello guys, haye saaxiibayaal, haye xarfaanta, haye walaalahay way noqon kartaa. Today maanta waxaan doonayaa to talk about inaan ka hadlo money, lacagta. This is really important topic. Tani run ahaantii waa topic muhiim ah because maxaa yeelay money, lacagtu is a big part of our lives. waa qayb weyn oo ka mid ah nolosheena. So first ugu horeyn let's talk about inuu ka hadalno currencies, shilimaadka. A currency, shilimaadku, is the type of money, waa nooc lacagta ka mid ah that a country kaasoo wadan uses uu isticmaalo. For example, tusaale, the currency of US, currency-ga US ama United States ama Mareykanku is the dollar, waa dollarka ay isticmaalaan. And the currency of Somalia waa shilin Somali. And the currency of Mexico, currency-ga wadanka Mexicana, is the peso, waa peso ayaa loo yaqaanaa. currency-ga isticmaalaan lacagaha yaryarka waay. Every country, wadan walibana uses wuxuu isticmaalaa currency-ga wuxuu isticmaalaa to buy, inuu soo iibsado, and sell, uu isaga iibiyo things, ashyaada, lacagaha yaryarka ee wadanku isticmaalo waay. Some currencies-ka qaar are very valuable, aad bay u qiimo badan yihiin. And other currency-ya kalena are not very valuable, aad uma ahan kuwa qaali ah. For example, today maanta $1 hal dollar oo US ah ama Mareykan ah is worth, wuxuu u dhigmaa 22 Mexican pesos, 22 pesoda Mexico ah. dhanka kale $1 wuxuu u dhigmaa Somali markii la joogo 25 shilin ayuu u dhigmaa. So dollarku aad buu qiimihiisu u sareeyaa. The dollar is more valuable, dollarku aad buu uga qiimo badan yahay right now, waqti xaadirkan. So what currency does your country use? what currency-ge ayuu isticmaalaa wadankaagu? hal wadanka aad joogto currency-ga laga isticmaalo magaceeda noo sheeg. Malaysia oo kale hadda ringgis baa laga isticmaalaa. marka Hindi oo kale rubi baa laga isticmaalaa, rubis. marka inoo soo sheeg halka aad joogto currency-ga laga isticmaalo. Okay, now let's talk about ayna ka hadalno prices, sicirka ama qiimaha. In the US, markii la joogo US ama Mareykanka, most things shayaasha inta ugu badan are expensive, waa qaali. They cost, waxay ku qarash garaysan yihiin a lot of money, lacag fara badan. In other countries, wadamo kalena, things shayaashu are cheap, waa raqiis. They don't cost, kuma qarash garaysna a lot of money, lacag fara badan. For example, in the US, markii la joogo US, the average price celceliska qiimaha of the house ee guriga is about, waa qiyaastii $250,000. But like in Mexico, the average price, celceliska price-ku average waa celcelis of a house ee guri is probably, waa qiyaastii around ku dhawaad $40,000. So farqi badan baa halkaa ka jira. That's a big difference, taasina waa farqi weyn. Prices, qiimayaashu are very different, aad bay ugu kala duwan yihiin in different countries, wadamada ka kala duwan. Another major difference, farqi kaloo aad u weyn, wuxuu yahay with salaries, mushaaraadka. The salaries, mushaaraadka in some countries, wadamada qaar are high, aad buu u sareeyaa. And the salaries, mushaaraadka in other countries, wadamo kalena are low, wuu hooseeyaa. In the US, salaries are pretty high, mushaaraadku aad bay u sareen, pretty waa aad. Americans, dadka Amerikaanka ah ma Mareykan ku nool, waxay u baahan yihiin to make, inay sameeyaan a lot of money, lacag fara badan. Because maxaa yeelay life, noloshu is expensive, waa qaali in the US markii Mareykanka la joogo. In some countries, wadamada qaar, people dadku don't need, uma baahna a lot of money, lacag fara badan to live, si ay u noolaadaan, to life and there. But laakiin everyone, cid waliba needs, waxay u baahan tahay some money, xoogaa lacag ah to survive, si ay ugu noolaato. Okay, now haddana let's talk about aynu ka hadalno spending, qarash garaynta, and saving iyo kaydsashada money, lacagta. Some people, dadka qaarkii, really runaantii like waxay jecel yihiin spending money, lacagta inay qarash gareeyaan, ay bixiyaan. And other people, dadka kalena, prefer, waxay doorbidaan saving, inay kaydsadaan more money, lacag fara badan.
different people dadka kala duwan have waxay leeyihiin different habits dabeecado kala duwan. My family qoyskaygu always had a jeer like it wuxuu jeclaa saving money lacagta inuu kaydsado. My mom hooyaday taught me ayaa i bartay to always in had a jeer save and kaydiyo some of my money dhowr qaar ka mid ah lacagtayda. So today I try waxaan isku dayaa to save inaan kaydiyo some of my money qaar ka mid ah lacagtayda I earn aan shaqaysto. It's not always easy hada jeer ma aha mid fudud to save in la kaysado though laakiin you have to be careful waa inaad ka taxadirtaa with your money lacagtaada because it's easy maxaa yeelay way fududahay to spend inaad qarash garasho too much in badan. I know waan ogahay many people dad fara badan that in don't save aysan kaydin money lacag. They always hada jeer spend way qarash garayaan their money lacagtooda on waxay ku qarash garayaan clothes dharka electroniga vacations fasaxyada and other things iyo shayaal kale. I spend waan qarash garayaa money lacagta on these things waxaan ku qarash garayaa ashiyaadan but laakiin not all my money lacagteeda dhan maaha. Some people dadka qaarkii spend waxay ku qarash garayaan all their money guud ahaan lacagtooda because maxay leedahay they want waxay doonayaan to enjoy inay ku raaxaystaan the moment waqtiga. I don't think umalay I could do this in tan samayn karo. I think waxaan umaleeyaa it's good inay wanaagsan tahay to enjoy in lagu raaxaysto the moment waqtiga but laakiin it's also good sidoo kale ugu wanaagsan tahay to plan inaad qorshaysato for the future mustaqbalkaaga inaad wax u qorshaysato. One other thing hal shay oo kale that in people dadku do ay sameeyaan with their money lacagtooda ay ku sameeyaan waxa weeye is to invest inay maal gashadaan. You can invest waad maal gashan kartaa in many different things shayaal kala duwan oo fara badan like sida the stock marketka saamiyada suuqa aan dhahe real estates iyo hantida guurtada ah sida dhulalka currencies lacagahu inaad ku qarash garaysato or gold amse dahab. Many Americans American fara badan invest waxay ku qarash garayaan their money lacagtooda way qarash garayaan. They want waxay doonayaan to use inay u isticmaalaan many Americans invest way maalgeliyaan their money lacagtooda. They want waxay doonayaan to use inay isticmaalaan this money lacagtan to make say u sameeyaan more money lacag fara badan in the future mustaqbalka. In some countries wadamada qaarkii investing maalgashigu is not very popular ma aha mid caan ka ah or sometimes ama mararka qaarba they don't have ma haystaan a good investment options dooqaq ama ikhtiyaaraad maalgashiyo wanaagsan. You need waxaad u baahan tahay to be careful inaad ka taxadirto when you invest marka aad maal gashanayso your money lacagtaada because maxaa yeelay not all investment options are good and all investment options ama ikhtiyaaraadka dhammaan ikhtiyaaraadka maalgashigu inay wanaagsan yihiin maaha. Some investments qaar ka mid ah maalgashiyada are bad way xun yihiin and you can lose waxaadna ku weyn kartaa money lacagta. You can lose and you can lose money. People dadku have waxay leeyihiin many different ways habab fara badan oo kala duwan to manage ay ku maareeyaan their money lacagtooda. All right waa hagaag that's all for today. Waa intaas maanta. Leave a comment ii reeb and tell me ina sheeg if haddii you spending aad qarash garanayso saving ama aad kaysanayso oo investing ama aad maal gelinayso money lacagtaada. halka ayaan ku soo afmaraya saaxiib waxaan ka codsanaa muuqaalka inaad share garaysaan like na aad dhahdaan aad baad u mahadsantihiin saaxiibayaal.